السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si aad uga faa'iidaysato cashiradan qaabka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد waa mar kale iyo taxaniheenii Microsoft Word 2021 iyo videogeenii tobanaad ama cashirkeenii tobanaad wanay kusoo qaadanay cashirkii horeeyay qaabka table loo soo gashto qaabka wax loogu dhex qoro tableka laftiisa iyo qaabka aad formatting ama maxaan dhahaye table styleka u isticmaali kartid ood kalare iyo waxa ugu kala shushubin karaysid videogan maanta waxaanu ku arki doonaa qaabka tablekii ku abuurnaa aad maxaan dhahaye dad kusoo darsanayso column ama row amaba dee matalan waxaad rabtay ahayd tan oo kale inaad iska dhiligaraysaa rabtaa qaababka waxyaabahaas ayaynu arki doonaa waxaynu ka shaqayn doonaa waa kan intaas rows and columns intaas ayaynu arki doonaa waxay qabtaan waxaanu ku bilaabi doonaa delete aan ku bilaabaynaa dad intaad soo dul istaagto waxaan rabaa iminka column kan tirada ay ugu qoran tahay ama kaa bannaan inaan iska dhiligarayo saan samayn waan dul tegi isaga dabadeedna delete daasaan dul tegi dabadeedna maxaad dhiligaraynaysaa buu leeyahay ma delete column ma column baad dhiligaraynaysaa mise row columnka maxay noqonay inuu kuwan yahay rowskuna kaa yahay marka haddii aan iminka delete row dhaho rowga dhan ee magaca macal ay ku jiro ayay naga bixi rowgii dhannaa waxay naga baxay kaa ahaa laakiin haddaan iminka delete dhaho delete columnkii bannaanaa ayaan rabnay inaan iska saarno ayaanu maxaa dhahaye naga baxaya endo haddaan dhahno haye iminka matalan haddaan rabo inaan kan oo kale dhiligareeyo qiimaha mid kamid aan istaagi delete column baan dhihi oo naga wada bixi intaas waa intaa okay haddaad delete table leedahayna maxaad samayn kartaa dee intaad wada doorato ayaad dhihi delete tableka oo dhan baa kaa bixi control z kaga soo noqo okay delete cell haddaad tiraahdo iyadna wuxuu ku weydiin doonaa ma delete entire row baad rabtaa ma columnyada oo dhan baad rabtaa matalan haddaad mid kamid intaan istaagno delete cell aan dhahno dabeedna entire row aan dhahno entire rowga kuu naga biin doonaa kii aynu dhex istaagnay matalan haddii aan iminka kaa korkay computerkaynu dul istaagnay delete cells entire row computer iyo wixii lamid ahaa ayuu kaa saaraya marka intaas waa intaa baadhbaadh wax kale kuuma hedhin delete row waad aragtay column delete cell kuna iyadu waa waxay kusii siinaysaa shift cells left shift okay iminka haddaan iminka kaasoo kale idhaahdo muxuu sameynayaa shift cells left yani kan aad taagan tahay okay haddaan iminka dhaho kanuu masaxayaa maadaama meeshan delete tahay kaad dhex istaagtay buu masaxayaa kii dhinacan ka ahaa ayuu sidan yani kugu soo durkinaya matalan iminka waxaan rabaa 69ka booskeedu inaan 69 ku baxdo shantana ay soo guurto oo xaggan ay timaado waxaan sameynaa delete cells shift cells left okay bas isoo shift garee haddii matalan iminka aan dhahno delete cells shift cells up haye waxaad arki doontaa in waxaan dhahay matalan iminka kan oo kale shift cells up in kii hoose uu usoo guuray kii sarena uu meesha ka baxay iminka kan oo kale haddaan delete cell shift cells up kii xaggaas inuu ka baxay kii hoose intaa ka dhex shaqee baadhbaadh waxay tahay dee delete-daas iyo sida wax looga dhiligaraynayo tableka haddaad dhiligareynayso dad hal column iminka kan oo kale aynu iska saarna bal matalan maxaynu sameynaa delete column okay saddexdaa column bes ayaynu rabnay matalan tablekaagii oo kuu diyaarsan ayaad maxaan dhahaye aad jeclaysatay in aad computerkan oo kale aad magac ka hormariso amaba maxaan dhahaye magacyadan tirada inaad ciwaan korka aad ugu samayso dabadeedna waxaad rabtaa inaad tableka hal row oo korka aad kusoo darto maxaad samayn haddii aad insert above tiraahdo maxaad aragtaa in hal row kugu soo biiray haye matalan control z aan dhaho waxaan rabaa computerka iyo magacyadan in aan hal item ama hal wax oo matalan qaybiso kale tiradeedana kusoo dara rabaa ama mobeelo waxaan rabaa inaan hal row oo kale kusoo darsado waa rowgii kuwan marka labadan waa rows labadana waa column rowgaanu ka baxno ay mid baan rabaa inaan dhexdooda kusoo darsado maxaan samayn ka korkaan istaagi insert below baan dhihi mid baa igu soo biiraya markaasaan iskaga qoran mobiles okay mobiles waka maxay nidhi insert above haddii iminka aad rabto inaad kan wax ama
computerka iyo mobileka labadan mid wax u dhaxeeya inaad kusoo darto insert above fadhi kolba midkaad soo dul istaagto yaad haddii de row ka sarreeya aad rabto inaad soo gashato insert above to waa kor belowna waa kor insertna waa soo geli kolomyada sidaas la mid ah tirada iyo qiimaha mid u dhaxeeya rabaa tirada iyo maxaan dhahay qiimahan baan rabaa labadan column u dhaxeeya haddii aan rabo kanan soo istaagi ama kanan istaagi haddaan kan istaago labadan mid u dhaxeeyaan kusoo darsanaya maxay noqonaysaa dhinaca midigta insert inaad tiraahdo oo kaas haddaad fallaadha eegto dhinaca midigta ku yani muujinaysa hal bay kugu soo diri doontaa haddaan tan doortana tirada iyo magaca labadan column dhexdooda igu soo daray marka insert right haddaan dhaho waxaad arki doontaa inuu igu soo biiray hal maxaan dhahay column oo kale dheeraada haddaan control z noqdo aan dhaho aan tirada iyo magaca wax u dhexaysiina insert left waad fahantaan u malayn yani midkaad taagan tahay haddaad dhinaca bidixda kaga daraysa waa kaa haddaad dhinaca midigta kaga daraysa waa kan rowga aad taagan tahay haddaad hoos kaga daraysa waa kaa rowga aad taagan tahay haddaad korka kaga daraysa mid kusoo daraysana waa kaa intaas waxay noogu dhan cashirkeenii ahaa table qaabka maxaan dhahay aad ugu soo darsan karto columns cusub iyo rows cusub haddii aan si guud usoo dulmarno maxaynu samaynay delete dan baynu baranay sida row iyo column u delete garayn karto entire column entire row sidoo kalena insert above insert below tan haddaad korka kaga darayso rowgii oo kale waka haddaad hoosta kaga darayso mid kale insert below mid kale soo gali columnka mid kale waxaad rabtaa inaad maxaan dhahay ku kale ku darto insert right okay intaas ayaynu baranay inta soo process gareeye dabadeedna hal shay oo muhiim aan ugu dari haddii aad rabto inaad yani multiple laba column oo kale matala inaad hal mar kusoo darsato ama laba line oo kale imika labadan haddii imika insert aan taabto insert above hal line bay igu soo daray hal row yani haddaan laakiin labadan intaan saa u yara doorto okay aan insert above dhaho laba kale ay igu soo biiri sidaas si lamid ah haddii columnyadan ay dooran yihiin laba on insert left dhaho laba column ayay igu soo biiray intaas waxay noogu dhan qaabka wax loo insert gareeyo loo dhili gareeyo waxaynu cashirka ku xiga sii wadi doonaa merge cells split cells waxyaabahaaynu arki doonaa waynu dhammayn doonaa tableka horena waanu sii soconnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu